السلام عليكم soo dhawaada haddii lagu weydiiyo su'aasha jacaylku inuu soo qaybsama waxa hubaal maskaxdaada inay jawaabo kala saari doonto adna aad sharaxaad dhirgeli doonto balse ma xumid waxa muhiim ah in lagu la garanayo waxaad sheegayso tusaale ahaan jacayl baan ka hadalnay okay jacaylka annahana wuxuu qaybsamaa afar ama sideed sida dadka dhan ay isla garanayaan haddaba intayna gudagelin mawduuceen aan maanta ka hadlayno fadlan haddii aad youtube-ka ku cusub tahay subscribe saar sidana share gare sidoo kalena facebook page-keena like saar aad baad mahadsantahay dhegta soo dhiga haddaba jacaylku waa sideed kow jacaylka aan shuruudda lahayn waa jacaylka waalidku ilmaha u hayo ama ilmuhu waalidka u hayo labo jacaylka walaaltinimada ama saaxiibtinimada saddex jacaylka wara waa jacaylka labaanaha ay sameeyaan kadib markay isguursadaan afar jacaylka xiriirka waa jacaylka aad ku heshaan qof inaad wada sheekaystaan kadibna aad jacayl samaysaan shan jacaylka ciyaalnimada waa jacaylka qofka marka ugu horeysa uu nolosha uu sameeyo kadibna uu dhibaato kala kulmo lix jacaylka laba ka dhexeeya laba qof balse labada qof mid oo aadka ugu badan yahay toddobo jacaylka isticlaanshiyaha oo qofku muhiimadda qiimihiisa isfahmo sideed jacaylka qofku jecel dadka kale inuu caawiyo oo u damqado sagaal jacaylka yaa kuloog waa jacaylka aad u qaado qof aan xidin ka dhaxayn ama ku aqoon kaasoo ku keeni kara dhibaato yaadho in lagu diido ama sidii rabtay ku noqon weyda si aad uga bogato mawduucyadan oo dhammaystiran fadlan booqo youtube-keena iyo facebook-keena maxsanid